Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan subscriberska ku xidhan channelkaygan aad baan idin salaamayaa. Insha Allah maanta waxaan jeclaystay in idinla wadaago dhammaan asxaabta dhibto haysato sideedoo kale ah wata Samsung Galaxy J7 ama maxay ahayd Marshmallow noocan la yidhaahdo versioniskan la yidhaahdo dambe ee hadda moobiladooda yihiin inkastoo Nokia ka dambeeyey oo root-kii diiday inay root qaataan adoo la doonto mooyaane maxay ahayd computer oo flashing wax la yidhaahdo ku sameeya. insha Allah waxaan idin tusi doonaa bal sidee ayaad u isticmaali kartaa GTA San Andreas weliba root la-aan cheat code-ka waxaa loo yaqaano kill your goal ama cheat code-ka. insha Allah maanta taasaan eegi doonaa bal mobilkayga horta aan eego inuu root leeyahay in kale root checkerka haddaan ku dhufto aan idhaahdo check bal inuu mobilkayga root garaysan yahay check garay inuu mobilkayga root leeyahay. saad aragtaan mobilkayga root ma leh, not rooted, your SM J700H is not rooted. waana versionkiisana waad aragtaa waa Marshmallow weeyaan. mobilkayga root ma leh, haddana aan idin tuso gameka waxaa igu jira kill your goal. ciddii garanaysa kolley inta gameka xiisaysa GTA San Andreas garanaysaa. wuxuu leeyahay uninstall, taa macnaheedu waxa weeyaan gameka uu install garaysan yahay maxay ahayd uu install garaysan yahay game cheat code-ka uu install garaysan yahay waanan isticmaali karaa hadda sidaad aragtaan oo waayo wixii oran lahaa install haddaanu maxay ahayn igu jirin gameka. sideeba haddaba loo sameynayaa asxaabi oo si fudud weeyaan. insha Allah waan idin tusi doonaa applicationka soo roganaysaa maxay ahayd application soo roganaysaa la shaqeynaya keliyo oo root la-aan ah APK without root ah ay soo roganaysaa. insha Allah linkigiisa qaybta hoose description-ka idinku siinayaa. applicationka soo rogo extracting ku samee faylka caadiga la soo baxay applicationka extracting ku samee yacni waa zip file waa inaad extracting ku sameysaa. sida wax loo extract gareeyana casharo badan baan ka sameeyey channelka ay ku jiraan GTA San Andreas weliba siiba la xidhiidha isna waad maxay ahayd raadsan karaysaa ama insha Allah anaa idinku tusaya hadda fiidiyowga. horta bal gameka aan eegno cheat code-ku ma shaqeynayaa, gameka gawaadhi ma soo dejin karayaa, waxyaabo badan ma sameyn karayaa. saan wada aragnay waan soo xaqiijinay inaan mobilkayga root lahayn. bal waxaan hadda xaqiijinaynaa inaan keliya gool inuu si fiican u shaqeynayo oo toos ah. gamekii baan hadda ku dhuftay bal gaadhi waan soo dejinayaa iyo hub baan sameysanayaa anuu bilaa root mobilkaygu yahay. sidaad aragto xagga sare waxaad ku aragtaa keliyo Android 24 March 2015 taa macnaheedu yahay keliyo gool already active weeyey. bal aan idin tuso inaan gaadhi soo dejin karayo oo GTsku caadi ugu shaqeynayaan. sidaad idin tuso xagga sare haddaan saa sheegi lahaa waad aragtaan GTsku caadi bay ugu shaqeynayaan. bal gaadhi haddaan Israel la soo deg waad aragtaan gawaadhidu caadi bay wada shaqeynayaan oo dhammaan gawaadhidu nooc kasta soo dejisan karaysaa. hadda Israel la soo deg toos buu shaqeynayaa waan koray karayaa marka cheat code-ku si fiican buu shaqeynaya. haddaan israa barimka duul toos baan u duuli karaa waad aragtaan CJ uu duulayaa sidaad aragtaan. gaadhiyo waxaa hadda uma baahna keliya goolna si fiican bay ugu shaqeynayaa sidaad aragtaan. ayu waxaad root ku sameynaysa inaad ku sameyn karaysaa kan mission selectorkii oo ah inaad missionka kugu adkaada isdhaafiso iyo howlo kale insha Allah kuwa dib aan dhigan doonaa. laakiin cheat code-ka hadda sida loo sameeyo iyo howlahaasan insha Allah hadda ku koobnaanaya. hadda sidaad aragto haddaan israel hub sameyso keliya cheat activated wuu yidhi yacni hubkii waan sameystay xagga sare haddaad aragto hubkii haddaan bedeli karayaa. haddaan balkaa ku yara cadho burburo aan maxay ahayd la dhaco
toos buu shaqeynayaa asxaabta oo aragtaan. Soo aragtaan toos bay wax kasta u shaqeynayaan absolutely insha Allah. Videogan idila wadaagaya insha Allah sida habkan loo sameynayo. Assalaamu calaykum. Hadda waxaan tusayaa insha Allah sida loo sameynayo keliya gool setup loogu sameynayo bilaa root insha Allah. Linkigiisa qaybta hoose description-ka ayaan ku siinayaa APK-ga insha Allah. Hadda nimka eego keliyo install bilay root waa false check-in C mode waa true version kuna caadi buu waxa kala dhan run laakiin sooma install garan karaysid root milihi mobilkaaga ma laha bilay. Marka sida loo dhaafaa mobilkaaga hadda root male sidana soo hubinayna root male. Marka waxaad tagtaa internalkaaga saanay daatada kaaga bixin yacni OBB-da faylka ku jira iyo daatada faylka ku jira labadaba rename ku samee magaca ka bedel oo something wax ku daroon ama one ku dar ama s ku dar wuxuun ku dar adu magaca xagga dambe ka raacay. OBB-da tag yara guji rename ku samee magaca ka bedel OBB-daada marka tagto magaceed ka bedelaysaa ama one iskaga darba GTA SA meesha u dambaysa one ku kordhi ka soo noqo deetana daatada tag oo dad gameka hore u sii ciyaarto xabaar ay machine aad waday saanu kaaga delete gareysmin oo kaaga waalan isna rename ku samee daatada inta GTA folderkeeda raadiso GTA daatadii inta ka raadiso qaybta daatada rename yadana ku samee one on iskaga dar ama something waxa doonto ku dar waxaan ku daranay mid baan iskaga darsaday midna one baan ku darsaday marka aad waxa doonto ku dar in faylkaas rename noqdo baa la doonayaa. APK-ga Grand Theft Auto iska delete garee GTA application-ka iska delete garee marka waxaad raadsataa faylkii bartad kusoo download garaysay faylkii Grand Theft Auto without root oo ka imika faylkii soo aragto bartaas waa inay yaalaa marka aadna qaybta description-ka ayaan kugu siinaya soo download garayso. Saad extract faylku waa zip file saad extract ku sameyso waxaad u baahantahay ZAR soo rogo barnaamijkan Google Play Store ka soo rogan karaysa horena aan u dhigay maxaaday channel-ka faylkaan soo download garaysanay waa ka deetana click extract here marka toos bi extract isugu sameynaya marka APK-ga iyo caadiya soo baxay sida aragto GTA San Andreas 1.8 non root keliyo APK sida aragto application-kii extract baan ku sameynay oo soo install gareynaa installing-kii waa socda marka zip file way extract ku samey sida loo extract gareeyo hadaan garanin casharo badan baan channel-ka ka dhigay channel-ka dib ugu noqo sida extract lagu sameeyo zip file-ka open de marka ku faylku install noqdo APK-gu iskaga soo noqo haddaynu imika check gareyno maxay ahayd keliyo gool sida aragto uninstall buu leeyahay waayo taa macnaheedu waxa weeyaan wuu install gareysay check root fails buu leeyahay weli laakiin iska indhatir waa already ku install gareysay root checking-ka waxba taas yeegin waayo install uu ku yahay sida aragto deetana inaan GTS iyo mods soo install gareyno uu diidaya sida aragto taas sababteeduna waxa weeyaan rename-kii meeshaan magaca ka bedelan one-kii ku darnay labadii meelood ayaa doonaya waxaan ku darnay ka baabiyo oo intoodii ku celiya originalka ahaa OBB-daada ku noqo deetana GTS one-kaad ku dartay ka baabiyo ama wixii aad ku dartay sayidka xagga dambe oo ayr kama sax okay dheh deetana daatada haddana tag oo faylkii daatada ha raadi wixii xarafkii aad ku dartay ka baabiyo marka oo originalkeedii ku soo celi. That's it. Toos baa doo shaqeynaya game-ku wakaa dhammaan cheats-ko dhan install baad ku sameyn karaysaa soo install karaysan dhammaantood insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax iga fahanteen insha Allah inuu idin anfici doono rajeynayaa wixii qofkii uu shaqeyn waayo ama maxay su'aal qaba waayo waxaan meesha soo dhigo horta xadiis maaha waxaan waa 80 oo ku shaqeyn kari waaya oo ku shaqeyn karaya
marka wixii cilada haddaad cilad la kulanto qaybta hoose ee commentiga soo dhig ama whatsapp groupka nagula soo biir sida lagu caawiyo. waa walaalkii farxaan dalbaax dhammaantiin insha allah aad baan idin salaamaya. channelka haddaan subscribe ku samey subscribe saar, beelkana furo si yacni casharada insha allah soo geliya aanay kuu dhaafin. insha allah inuu aad idin anfacayaan rajeynayaa, laakiin mid ogsoonow labada fayl ee gudaha un iska ilaali. dadka qaar baa intay hadhow ilaawaan ku xoojinaya ku oranaya faylka gameku shaqeyn laayay waa xambaasana. labada fayl ee gudaha markaad magaca ka bedesho aduu one un iskaga dar, already soo koob one un ku dar, deetana hadhow markaad hawsha ku dhamaato lpk-gana soo install garayso, hawsha dhan dhamayso, deetana labadii magaca kasoo bedel, magacooda caadiga kusoo celi, deetana kusoo noqo maxaa ahayday keliya gool kusoo noqo. keliya gool markaad kusoo noqotana gtska iyo maxaa modiska soo install garayso. that's it, way dhamaatay. deetana gameka hore ka ciyaar. insha allah dhammaantiin aad baan idin salaamayaa. asalaamu calaykum.